mid waa arrinta Somaliland arrinteeda waxay soo taageeray 30 sano marka dee hawl 30 sano tiiglay ma sahlana in hal subax lagu soo koobo lagu soo dhameeyo ma sahlana waa kow dadkii waxaas ay ka dhaxeeyeen 30 sano ka hor dhibkii dhacay ilaa ay maanta isaga imaan waayay ee xalli waayeen anoo nin kala diyaaradiisa saarnaan tagahan soo xalinaan aydan xaaji suurtagelisay maaha ma garanayo cidda oo kula talisay muxuu ahaay madaxweynaha arrintaas kula talisay ma aqaan laakiin de sida oo halkan laga sheegay ragga madaxweynaha talada siiyo la taliyaashiisa ah yaaba afkaartooda ay muxuu ahaay banaanka taalaayo meel walba ka sheegabo khaa'iniin ay ahaayeen dalkay kala gooyeen in la ciqaabo oo maxkamad la saaro waaye mid yiraaho dhibkii dhacay iyo wixii dadkaas ku dhacay maalintii dhacday saxay ahaydba in sidaas la yeeray ahayd iyo dad waa dadka madaxweynaha dhinacyaha ka fadhiyo oo la taliyo oo war u sheego oo way aragnimada uu ka qaato oo maxaan ku radaa caqliga uu doonto hadda waxaan u maleynaa intaas dadka Soomaaliyeed inay wax fahmi karaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhulkaas degan laba qabiilo isdirtay lama ahayn maxaan ku iraadaa lama ahayn reer ku duulay iyo deegaan ku duulay lama ahayn dawlad dadkeedii iyo dalkii qaybo ka mid ah inta qaadatay xasuuqday ay ahayd dabcan marar badanna waa la wada sheegay dawladdaasi dalka oo dhan iyo dadka oo dhan dhibaato u geysatay laakiin waa si kala duwan tahay meelan meeshaas ahayn oo dalkan oo diyaarada lagu duqeeyay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo magaalooyin dhan dhulka la dhigay oo la xaaqay oo laga dhigay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo dadku ay maxaan ku iraaday xawaalo wadareed iyo maalin walba la soo qodo la arkayo dalka qaybiska kamid waa jireen dad badan oo Soomaaliyeed kuwa dawladda ceelasha u sameysay baraagta kuwa maxaan ku iraaday farxumo iyo muxuu ahay magaciisa lagu rakacay kuwa akhyaartoodii iyo odayaashoodii la dilay kuwa maxaan ku iraaday si oo yaani aan ficneen loola dhaqmo waa badnaan laakiin wixii ka dhacay waqooyiga Soomaaliya waxay ahayd wax gudabar u tumanay oo xaajo gooni ah marka waxaan aad iyo aad u garawsanahay inay mudan tahay si gooni ah in loola macaamilo aan midowno aan isku darsano aan hal dal noqono waa waxa ugu fiican oo aan jecelnahay ilaahay idinkiis waa qaba anaa qabo dadka intiisa badanaa qabo laakiin midnimadaasi siday ku imaan kartaa la rabaa caqli iyo wanaag iyo niyad samaan iyo walaalo ay ku imaan kartaa dagaalkaas iyo xumaantaas dhacday 30 sano ka hor kadib wax weyn oo hadda koonfur iyo waqooyi kala gaaray ma jirin laakiin tiyaa wilnool waa arkaysa baryahan oo dhan markii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya geynay meeshii la yiri wixii ka dhashay يعني داوعيدي يا بوقتي دب إنه حقنتي أو دب لو جديجي أو دب محاكرة عنانية حنون كذي دب صوّدا كذا وأرجع يصير وأركيسين من كذا يرضى بريهان المحاهل هذا الذي يصير هذا الهي ده هي ربكين أنا كلجا قنون أنا وعندي رو عرضي أنا محاهل ربك من الله أو الدليل أو عن ولا لا ديار تنقدبتني أي نقول دخسي أنا كلجي أذكر كسكري أنا نور ولا ما كان أركو وين هو يديس هاي لا ده هينه وحمارة ما كان أركو نين ولا كي ولا اللي هو قرب تاني هنا وحمارة ما كان وحاسي واحد عين هذا وين كاسي والد كسي ولا ليس مصون قنيان لكن si uu qanci karo uga daawoobi karo oo qalbigiisu nadiif u ahaa karo oo tabashadaas ay u baabi'i karto u daawoobi karto oo u cafi karo waxaas dhacay oo uga imaan karo oo wax ka wanaagsan wixii dhacay inta uu arko oo uu qanci karo oo gudbi karo lama iloobi karo wixii dhacay waa ka hor laakiin waa la cafi karaa waa laga gudbi karaa go'aan lagu gaari karaa in maxaan ku laakiin wixii dhacay wax ka fiican oo qofka inuu arko oo go'aan u gaaro taariikhdaas hore inuu inta iska gooyo iska reebo maxaan ku middan cusub ee hadda socota oo jaan qaado marka waxaan leeyahay
مدعوينه قراوشي سومالا وكديبينه بل في عنا وافعنا لكن مرة ما استغنين قدان وحقوق عطفي وقدان وحيرنا ما في عينين تدكاس أي قال اللاي أي قال الحسوقي أي قال وحي عدة أي عذردار بحنيان واحد ولا فهم كلامه وحيابه مدعوينه أي فعنان لهيد إنه شرحات كبحيه عدة أي عذردار إلا بال ندر تماهين ورينا يقولوا أنا قاعد عذر دارنا هذه كان نوع عذر دار تلليه ما أهين مركع عدة عذر دارنا يعني أيضا وفعنا لهيد سلوا أوجاده مدعوينه كبحيه ضد كاسد هل استيتمنت أمال الشيء كم داوريان هراء الله صار أنا قد ما دعنا عليه هذا وكحنا وكعذر دارنا كما أي داوري كما فلنين مركع واحد وين يسيك مقوين يسيك قابوين وباهن تاي وحي محاكو يوايه هذي وباهن تاي يوم حو هاي قاب كده روح ما كتاسو عن قبا أريد أسأل حوجا مجا جمهورية فدرالية الصومالية هي جارهان دولة ما أنت ترتاح حوجا كسب قتين نقطين مال هذا أنا كراي وقراي كرنا لوجا ما دراني له بوجي هذه على بيا كرنا داوين كرنا بكسين كرنا إن عندنا تنقصود محنكور هذا جوكي سوا ولا في عين على ما مركا وراها شو صومالي وضن مسؤولية المستقبل كي أنت تمارو من طالع يعني هو كرسون هاي إن أي وضد صحة هذه الصومرة حلوين لجاري دون ورانا الإسلامية تاس ما تبش صار بقى إن وها بدك الصهرتين ضدك دولة محل وياه قرني يكون إلا بعضنا تقولي بالدولة ما لنا مالين صومرت ما لنا يمحو هاي بقرة ما لنا محمد هذا نحو بدنا عيدا هايستي ما لنا محمد هذا أسكري محوها انقلاب سميه حكم قبصدي ما لنا حتى أدوية بحسوقات اللي أسكري هذا وضل حكم قبصدي لما أقوصنا لما أقبلين ما أقبلين عالم كله يلاد أوروكا ميدو أفريقيا وديدو يقدر يديدو ما لو بلغ يديدو لا حكم قبصدي سعو ضدك حكم ما يسكري ما لنا كنت لو كدولة أفريقيا جبت أنتوا بدنا أسكرك كتنجت marka waayuhu waa socdaan hadaad ka gaariso waa sideedo kale dadweynuhu marar badan oo ku celiyaa waxaan xuduudaha dalkan soo xirin dalka diriska qaarna waa xuniin qaarna waa fiican yihiin siyaasaddu saaxiibo iyo jacayl gaar ma laha waliba dawladdu danay matashaa danahaasay ku xiran tahay qofka isku fiicnaanayaan iyo qofkaan isku fiicnaani danahaasay ku xiran yihiin aad iyo aad ayuu madaxweynuhu ugu celceliyey maalin dhaweyto dowladda Kenya cadow inay tahay in ay waxalaysay in laga maarmo in laga waxay waa isku xunnaay fargelin ma garanayo aniga dadka Soomaaliyeed ayaa ku habboon inay ka jawaabaan meesha Kenya ay cadow aan la soo gali karin ay noogu tahay Eritrea iyo ninkaas 40 sano iyo jajarka joogaan oo xabiib maxaan ku ogaayay oo noogu yahay waa ayadana garasho u baanta waxaan rabaa inaan sheego kale maalin taariikhda badda sababteed Kenya iyo dawladda Kenya isku hayaan xushay arinta badda ayadoo maxkamadda taalo ayaan Kenya isku fiicnay isbooqareynay isu imaanaynay isu waxaynay maxkamaddu ay taagan tahay oo qadiyadeeda ay taagan tahay oo waliba aan muxuu ahay aad la isaga warwarsanin oo laga hadlin soo marnaan joognay waayeen maanta marka maxaa keenay madaxda dalkeena ayaa arinta badda si xun u isticmaashay dawladda Kenya ayaga oo carab la laadiyay ayaga yiri xalan gaarayna maxkamadda banaankeeda lagu xalinaa هبلو محوها وحي دل هبلو محوها صباح قعمت كقبة ود نيروبي فتح كسي عودي ودجي محاك إلى وحلنا وحل سيدة من عرف الدبلوماسية بين لقى مشاعر دبلوماسية ده مقشوا ما أنت ذاك الشيء بريد مسك بحماية مقشوا دبلوماسية ده مقشوا بلاد أنت بلاد أكتر هنا ده فلوني هنا قادر مدحوينه هنا رئيس الوزراء هنا way ogaayeen arinta badda in aan maxkamadda ka soo celi karin dadka Soomaaliyeed aan ka aqbalayn sabab ma jiro marka Kenya ugu carab laadiyaan ay dad badan u geliyaan oo inta xal laga raadiyay dhahan oo bal dib ha loo dhigo maxaa si aan xal u helno dacwada dib ha loo dhigo aan isla dhaxno anaga Kenya ilaa anaga kaliya dacwada uma dhigan Kenya kaliya uma dhigan waa isla dhaxno
dacwadu waa siyaasadeed ra'iisul wasaare ku-xigeenkeena iyo madax iyo mas'uuliyiin meesha u dirnay dad sharci yaqaanaa iyo farsamo yaqaanaa loo diri jiray iyo bulshada rayidka maxkamadda loo diri jiray si ay goobjoog u noqdaan u arkaan u dhageystaan diasporadan loo diri jiray bulshada rayidka beledkan joogtaa loo diri jiray dad muxuu ahaa xeer yaqaano iyo shuruucda dowladda wixii sharciga ilaalintiisa u qaabilsan oo xeer ilaalin u weynaa loo diri jiray laakiin siyaasiyiin muxuu ahaay ma dhex istaagi jirin maxkamadda in wixii hadda campaign siyaasadeed iyo magaca siyaasadeed lagu raadiyay ciladaha jiray ka mid tahay kenya iyo dowladdeeda waxay isku hayaan maxkamadda case naga yaallaa ma aha waa ballamada iyo carablaalaadiska iyo rajagelinta iyo ee laga baxay birina laga baxay waaye oo maxaan ku la fulin waaye waa wax la isku haysto dadka Soomaaliyeed fahmaana inta jeerad idaacadaha iyo mas'uuliyiin dalal kale iyo meelo kale aad ka maqasheen maxkamadda banaankeeda mucaamalaha socdo waa la heshiina oo boqolkiiba muxuu ahaa 40 xagga loo qaada boqolkiiba 50 xoogaa xagga loo qaada inta la kala waxayna